وحوجي بنتلان برواقيو بروي النبضات بالشعب مات با مولاه يكبروا بالقبة وهو يتو وكل بني سماديو بحد يسويتو هو عامي يقول دقم برنبا كتالو بوساسي اي بيلا كتالو بلنقال كعيو بالسميقرويو بلد لاسعانو وهو لا كتالو لاسخوري بدأيو حافون بداوعا بونيغا قردايو عيريغا وكوبوغي محمود احمد عبد الله كل سغال بقول سغاشني سيدي بياهي حلي بقولار الارغوي ay ka kala yimaadeen gobolada Sool Sanaag Mudug Bari Nugaal iyo degmada Buuhoole ergooyinkaasi ayaa wadaagay isir dan iyo riyo riyadaasi ayaa ku salaysnayd ama sahagaysay rajo jacayl nabadeed jacayl horumar riyadaasi ayaa ahayd riyo isbedel doon ah haddaba dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Minneapolis ayaa ku riyooday riyadaasi riyo la mid ah waxa ay ku riyoodeen inay saameeyaan magaaladan ay ku nool yihiin waxa ay ku riyoodeen in ra'yigiini ay geeyaan goobaha looga doodo siyaasadda oo waxa ay ku riyoodeen in ay wax ka bedelaan sida la idin arko oo waxa ay ku riyoodeen inay wax ka bedelaan sida idinka aad isu aragtaan waxa ay ku riyoodeen inay qoraan taariikh guulaysata haddaba tallaabadii u horeysay loo qaaday mira dalka riyadaasi ayaa ahayd in laga qayb qaato dib u qoridda qariiradda magaalada Minneapolis maxkamad bay tageen khubur ay kaashadeen waxayna soo bandhigeen degmo midaysa xaafadaha ay ugu badan yihiin Soomaalida magaalada Minneapolis ujeedada degmadaasi ayaa ahayd in la isu biiriyo xuduudda Soomaalida iyo in la helo fursad lagu fulo masraxa siyaasadeed ee magaaladan dadaal dheer ka gadaal iyo idinka oo ina garab istaagay awgeed waxaa markii u horeysay la mideeyay degmo oo ka kooban xaafadaha Soomaalida ay ugu badan yihiin magaaladan Minneapolis muddo laga joogo sanad ka hor ayaa dhalintaasi oo weli baadi goobaya riyadii isbedel doonka ahayd ayaa waxa ay xuleen mid iyaga ka mid ah si loo gaaro hadafkii mideeyay iyo weliba himilada ay tiigsanayeen Abdi Warsame oo ka mid ahaa aabayaashii riyadii isbedel doonka ayaa isu sharaxay doorashooyinka xisbiga dimuqraadiga ee magaalada Minneapolis waa aqoonyahan leh karti iyo waayo-aragnimo kuna soo kordhin karo aragti cusub siyaasadda magaalada Minneapolis waa gudoomiyaha ururka Riverside Plaza Tenant Association oo ah urur u ololaya danaha kala dhiibayaasha xaafadda sidoo waa gudoomiyaha ururka NRP oo ah urur ka shaqeeya dib u bidhaaminta bilicda xaafadaha guryaha ee magaalada Minneapolis oo waa asaasiyi hay'adda Han Relief oo ah hay'ad ka shaqeysa raadinta biyo nadiif qaybo ka mid ah deegaanada Puntland waxaan nasiib u yeeshay inaan ka shaqeeyo goob ka mid ah goobaha codbixinta xilligii ay doorashada dhacaysay waa doorashada xisbiga dimuqraadiga baan ka hadlayaa waxaan arkay hogaamiyahan weyn waxaan arkay hogaamiye dadaal badan oo waxaan arkay hogaamiye leh karti iyo aragti dheer waxaan arkay hogaamiye leh isxilqaan iyo saaxiib samayn waxaana lagu yidhi waad waalantihiin oo waxaana lagu yidhi caruur baa tihiin oo waxaana lagu yidhi reer hebel baa tihiin oo waxaana lagu yidhi Soomaalidu waa dad xun oo waxaana lagu yidhi waa la idinka tira badan yahay waxaana lagu yidhi waa la idinka tira badan yahay aniguse waxaan idhi qoraahdii Soomaaliyeed oo ahayd rag hadduu ku gaaro ama kor u dhaafo rabboo kala mooye way iskaari karaan waxaan xasuustaa maalintii doorashada ay dhacaysay gabadh yar oo Soomaaliyeed oo 10 jir ah baa waxay igu timid goobaha codbixinta
codbixinta waxay igu tiri waxaan kugu imid hooyaday baa waxa ka soo tegay gaadiidkii daad gureynayay codbixiyayaasha waxay tiri hooyaday waa curyaan waxay tiri hooyaday ma soo bixi karto waxay rabtaa in gaari loo diro waxay tiri hooyaday waxay tiri seexan maysa caawo ilaa ay u codayso musharaxa Soomaaliyeed ee Cabdi Warsame waxaa ii caddaatay in halgankan oo aan ka shaqaynayo inuu yahay halgan xalaal ah waxaa ii caddaatay in halgankan uu yahay halgan Soomaalidu midayn karto waxaa ii caddaatay in hawshaan ay tahay hawl mar hore loo baahnaa waa halgan soo socday waa halgan wali socdo waa halgan aad idinka iska leedihiin oo ila soo dhaweeya saaxiibkay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee degmada lixaad mudane Cabdi Warsame waxay u kaliftay inaan u tartamo xilkan waxay u kaliftay anigu idinkaan yarka ay dhalinyaro badan oo ka tirsan maxaa la dhahaa programkeena campaignkeena waxaan ku kornay qurba weligeen maana arkin Soomaali oo nabad weligeen iskuul Soomaali ma dhigay weligeen magaalada Muqdisho oo weyn kuma noolaan ma aqaan kaas dadlaar iyo afartan jirdiin iyo hobel oo waxyaalaha aan maqlo laakiin ma xasuusto waxay u kaliftay dhibaatada kala kulmay qurba joognimadii aan ku koray wuxuu ku koray single mother ay korisay lix cunug baa gabadh u ahaa magaalada London oo ninka odaga Abubakar Awaale uu ka yimid baa uu ku koray waxaan ku koray xaafadda Leytonstone oo Central Line mara waxaan idin sheegayaa dhibaato ku kortay iyo bahdil waana la yeesi jiray waxaan xasuustaa markaa iskuulka dhiganaya ciyaalka ajnabiga waxay isku cay jireen hooyadaa waxay u eg tahay Soomaali baa la isku cay jiray iyo hooyadaa waxaa ka urta unsi baa la isku cay jiray marka anigu ciid baan hayay why ayaan u ahay why am I from the poorest country in the world maxaa igu kalifay inaan anigu waqtigan aan koraayay inaan ka imid dalka adduunka ugu fakhrisan taas baa igu kalifay waxaan ku koray Soomaali oo fool xun ilka dhaadheer oo dantiisu baahan qaad cuno caata ah aan la bisan karin timo ayagoo fool saas leh suuqa ka xiri jiray marka qofkii waxa yaqaan jiro 6 sano 7 sano oo la maraayo waxa la yaabi jiray marka yara ciyaalkeena Soomaaliyeed isku sheegi jirnay alla maanta waxaan arkay waxa ku farxay maxaa arkay waxaan arkay Soomaaliyeed baawur taas waa Soomaaliyeed waxaan arkay Soomaaliyeed oo baswo waxaan arkay Soomaaliyeed oo McDonald's ka shaqeeyo taas waa ku soo koray markastana waxay u jirtaa ciid iyo dareen ah inaan muujiyo waxaan ahay inaan dadka tuso Soomaalida hooyada ay sheegi jirtay Soomaali qurxoon Soomaali way qurux badan tahay Soomaalida marka horta midda labaad waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo doorashadan aan u tartamaynaa sidii yiri Cabdi Nuur Saalax inaan bedelno sida naloo arko inaan bedelno sida ilmaheena loo arko magaaladan waxaan nahay 10% ilaa 20% canshuur baan bixinaa sharcigu saameyn buu nagu leeyahay haddii parking-ka aad dhigatid maxaa aad dhigatid maxaa la Mall 24 waa arko waxa kugu dhacay haddii aad dhigatid sida Riverside waa arko xaafadda anigu aan deganayo sida Riverside waxa weeye xaafadda ugu parking ticket-ka badan magaalada Minneapolis niman baa shaqo u yimaadeen ticket-ka siiyaan dadkeenu dad fiican baan waa iska bixinaa ticket waan iska bixinaa xaafadda sida Riverside waxay tahay xaafadda ugu jidadka xun magaalada Minneapolis lacagtana la ka qaato jidadkeena ma la geliyo arka awoodda siyaasadda waxaa jiro jid la dhaho Riverside oo maro ilaa iyo Cedarku tagaa jidka Riverside dhinac waxaa ku yaala wax la dhaho Anki Institutions waxaa ku yaala University of Minnesota waxaa ku yaala Oxford College waxaa ku yaala Fairview Hospital wili in jid marmar jidkaas u marteen laamigiisa sanad kasta la bedelaa ya waxaa u tilaabanaysaa 4th Street ama 6th Street oo dhinaca Cedar waxaa ku yaala boqolintaas leeg roadsku ma la fix gareeyo
University of Minnesota iyo Oxford College iyo Fairview waa laga baqayaa city council waa ka baqayaa because way la xisaabtamaan laakiin 6,000 oo ku degan daaradka dhaadheer ma la xisaabtamaan awoodna ma leh markaas baa leeyahay annaka doorashadeena waxay doorashadeena bedeshay haddeer waana la ka baqaa maanta waa aragtay inta qof idin timid oo dhahayso my name is Eblay waxaan u tartamayaa meeshaas iyo maalintii iidii inta nin oo idin timid inta qof oo idin timid oo tiri waxaan rabaa duqa magaalada inaan maxaa la u tartamo ogaada doorashadan haddaa soo baxdiin ma aha kale inaan cabdi warsame xilli magacaabaysiin duqa magaalada idinkaa magacaabi doontiin duqa magaalada Minneapolis aartii Ryback 10 sano u joogay wax u noo taray male haddeer midka soo socdo ragama dumar waxay yihiin ma noqdaan waxay ogaan doonaan in annaka codkeena la'aantood aanan la dooran karin waxay ogaan doonaan in codkeena micno leeyahay waxay ogaan doonaan dadka siidar jooga inay micno leeyihiin kuwa 24 inay micno leeyihiin kuwa maalin kasta lagu abuse gareeyo caramel iyo 24 inay micno leeyihiin waxaan rabnaa inaan tusno ilmaheena inay annaka micno noo yihiin ciyaalkaan xiran inay annaka micno noo leeyihiin inay gabdhaheena xijaabka qabto aan lagu abuse gareyn karin markay aeroboortka ka dhoofaan in maxaa lahaa poliisku profile inuu ku sameeyo now yar iga horreeya wuxuu yidhi calacalkaa iska dayn waa run hadal wax ma lagu taro annakuna ma idin weydiisanayno idhagaysta campaignkeeno lacag ma idin weydiisanayno mana idin weydiisanayaan dhiig noo shubtiin waxa kaliya idin weydiisanay waxa weeye inta ku sameyseen Barack Hussein Obama inta ku sameyseen Keith Ellison ay ku soo celiyo waxa idin weydiinayna waxa weeye inta Keith Ellison u sameyseen oo Barack Obama u sameyseen anoo idin kaga dhow Keith Ellison iyo Barack Obama waxa ka horreeyay idin sheego annaka doorashaan ku reeyay qof naxariistiis iyo qof jacaylkiisa iyo xisbina jecel ma jiro waxaan ku reeyay doorasho annakaan qaadanay xaqeena qofna ma weydiisan we took it you understand maalintii doorashada aan galayno oo cabdi ka hadlaayay waxaa loo tartamayay 386 ergooyin 386 ergooyin iyo 9 xaafadood baa loo tartamayay waxaana la tartamaynay nin 3 jeer la soo doortay 12 sano xilka hayay madaxweyne ku-xigeenka magaalada Minneapolis ah oo ay Soomaali xataa lagu yiraahdeen waa dhici karta qaar inay joogaan ay lagu yiraahdeen ma la tartami kartid cabdiyo refugee baa tahay cabdiyo madow baa tahay cabdiyo muslim baa tahay cabdiyo Soomaali baa tahay cabdiyo waxaana tusnay 386 ergooyin loo tartamayay waxaan qaadanay 350